السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وقاليقا سوري دواذا وولاشين هداية حسن channel كان قداونيسين وهداية حسن نعاوة إيه قصة عصب قصة يعني وضع عاوة هدو إلهي أود بدن كرال نقضو سوري دواذا سمسكرابكا لايكتا كومنتيga حقينوا إن شاء الله مركا أصحابي نعاوة حاجي وضع قصة عصب بريان بيسي يعني كنقضي إن شاء الله waxay noqon doontaa inaan jaanis ka raadi doono baryaan marka asxaabay soo dhawaada caawa waxaa idin wadaa qisadan oo xaqiiqo ah oo qiso dhab ah insha allah hadduu ilaahay awood badan karaal noqdo aan rabo caawa inaan idinku taagtaagsado dhammaysta markaad dhammaysatiin marna waa yaabaysiin marna waa qosli doontiin insha allah hadduu ilaahay awood badan karaal noqdo qisadan waxay aheeday nin imaan ahaa jiray oo waa xaqiiqo anaa idin dhahayo nin imaam ah oo masaajid ka dushiyo marka imaamku wuxuu sameeyey salaada maqrib ayuu istaagaa marka horta idin kala dhaafina imaamkan wuxuu jeclaa masaajidka inuu ka aadimo markaste masaajidka inuu tujiyo dadka oo salaada isaga u istaaga markaste gurigiisa camal uu ka dhigta qof kale hadduu ka aadaamo wuu la dagaalaya qof kale hadduu salaada maanta dad dushiyo qofka oo maanta salaad dad ka bixiyo wuu nacayaa wejiga u bedelay saas si dabeecadiisu aheeday sida dabeecadiisu aheeday adiga guri oo isiga leeyahay gooni u leeyahay horta waa guri ilaahay masaajidka dadka dhanaa leh laakiin si isiga si goonihu iskugu dheji jiray maanta waxaa dhici doono galbaha ka mid ah waxaa dhacday inuu isheeg maqribka salaada maqrib markii la gaaray ayuu intaa horta salaada la gaarin uu isoo diyaariyey bas salaadii uu adimay maxaa la dhahay maqribkii dadka salaadii masaajidka lagu soo aruuray masaajidka markii lagu soo aruuray waa aragteen markii salaada laga baxo waa la duceysanayaa dadka qaar kutub ay soo qaadanayaan quraan ay akhrisanayaan waqtiyaa meesha lagu qaadanaya bas meesha marka xaafadda dad oo waxay ahayn maasha allah masaajidka ku xiran casirka duhurka maqribka masaajidka maasha allah waa camirnaa jirin masaajidka wuxuu ahay masaajid maasha allah aan daris ahayn oo ahay maasha allah wadaadka muxuu samey doonaa qisadan waa qiso la yaab leh wadaadka wuxuu samey doonaa in kaga sheekeynaya marka salaada maqrib markii la dukaday ayaa marka waa aragteen salaadaha markii la dukado qofkii muraadle wuxuu sameeyaa wuxuu yiraahdaa asxaabey culimada meesha isku imaaday wuxuu dhahaa faatixada la aqriyo muraadaan leeyahay faatixada la maro okay waxaa dhacda markaas inuu ii sheeg faatixada qofkaas marka waa loo maraa waxaa la yiraahdaa hebel faatixada ha la iskugu daro faatixa la iskugu daraa marka waxaa dhacday inuu wadaadkii salaadii maqrib dadka markuu ka bixiyey uu istaago oo microphone qabsadee dhaho waxaan rabaa culimo ilaahay inaan faatixada la isku keedaro muraadaan leeyahay inuu muraadkayga ilaahay ii sahlo faatixada lee maro u dhaho markii saas oo qofku dhaho muraadaan leeyahay faatixada iyo aqri maxaa kugu soo dhacayo inuu ilaahay ku baray ileen faatixada waa taqaanaa inaad u marto tira muraadkaaga ilaahay kuu sahlo laakiin tan taas waa ka duwan tahay waxaa dhacday inuu yiraahdo faatixada halee maro markuu dhahay maxaa dhacday inuu ii sheeg nin dariskeena ahaa maasha allah mahad meeshaanan ka salaamaya hadduu arkaayo aad horta qofka markuu su-aal badan yahay oo wax walba inuu ogaado uu jecel yahay wuu ku guuleysanayaa wax xun iyo wax fiicanba inuu ogaado dadka intayna faatixada marin ayuu mahad wuxuu ku yiri faatixada aan ku marno horta maxamee muraadka aa leedahay noo sheeg u dhahay muraadka aa leedahay noo sheeg faatixada in la maro maxuma ceeb maahan faatixada waa kuu maraynaa muraadka aa leedahay noo sheeg uu yiri markuu sidii dhahay wadaadkii wuxuu yiri wixii uu qabo ma qarsanine wuxuu yiri ku yar oon aan dhalay ayaa nafta ii keenay inuu cimriga ilaahay usoo gaabiyo faatixada ee maruu yiri ya faatixada iska marina aniga asxaabda iyo waxaa maanta caaway qisada idinla wadaagayo qof markuu ku yiraaha faatixada iyo mar hala soo boodino faatixada ha marin si aad markaad ogaato qofkan wuxuu u dan leeyahay ayaad faatixada mari kartaa
dadkii dhan waa naxeen marka dadkii dhan way naxeen subxaan allah ilmahana meequu la jiraa mataqaana waa 4 jir 4 sano ilmo jiro muxuu dhibka ogyahay maxaa faataxada loogu marayaa inuu kartab iyo kub iyo kartab alla u keenuu yiri oo cimriga ilaah usoo koosakuy faataxada ila mara dadkii intay isku naxeen ay la yaabeen imaamkii masaajidka laga kala dareeray ayadoo waxba la dhihin ayaa laga kala dareeray masaajidkii faataxadina la akhrinin laakiinse hadduu uu ninkaan dhihi lahaynin faataxada aan kuu marnay horta noo sheeg muraadka aa leedahay hadduusan dhihi lahaynin lama ogaa lahaynin laakiin ninkaana kashafiyey dhahay noo sheeg horta faataxada aan kuu marnay waxa aan faataxada kugu marayn marka asxaabay qisadan waa qiso la yaab leh marna lagu qoslaayo waayo waxaan ugu qoslayaa odaga dhana weyn ee intaa la eg ee inta culimmada masaajidka ku dukata soo hor istaaga dhahay ilmahayga ila habaara ilmahayga kab iyo kartab allah u keenay faataxada iyo mar hadda waana 4 jir 4 sano jir waaye ma ahan qof weyn qof caasi waalid ma gaarin oo waa saqiir oo ilaahaba dembigiisa dhaafay waa 4 jir marka masaajidka intaad soo istaagta tiraahid cimriga inuu ilaahay usoo kuuso faataxada ila mara asxaabay taasoo kaleeta ha la iska ilaaliyo qof markuu ku yidhaaho faataxada iyo akhri ha iska akhrin qisada caaw waxaa usoo qaatay in laga faa'iidaysto oo faataxada lagu degdegin si qaldana loo akhrinin insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo asxaabay hadda kadib iyo qisada dambe oo idinla wadaagi doono dhegta idin taagnaato hadda kabacdi hadduu ilaahay ka raali noqdo waqti ayaan idin raadi doonaa asxaabteeda igu xiran soo dhawaada mar labaad mar saddexaad insha allah waan idin salaamaya walaalahayga qaaliga waxaan idinka rabaa comment share like intaba inaad la garab taagnaataan channelka korna u qaadaan insha allahu tacaala waan idin salaamaya walaalahayga qaaliga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu